wasiirada ka mid yihiin wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland, wasiiru dawlaha waxbarashada iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ay ka mid ahaayeen agaasimaha guud ee tacliinta sare, maamulka gobolka Togdheer, mas'uuliyiinta waxbarashada heer gobol iyo caafimaadka, madaxda shirkadaha kala duwan ee gobolka, guddiga maamulka iyo waliba macallimiinta jaamacadda Burco ayaa saaka ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen dufcadii lixaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Burco. Ardaydan oo ka qalin jabisay kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi ayaa munaasabadoodii qalin jabinta oo lagu qabtay hoolka jaamacadda Burco ay mas'uuliyiintani ka jeediyeen hadallo u badnaa dhiirigelin, dardaaran iyo bogaadin. waxay jaamacaddu diyaarisay iminka inay halkan ku bixiso master iyo PhD labadaba. waxay kaloo diyaarisay inay xirfadlayaal dhakhaatiir iyada nafteeda ay halka kan u diyaarisay inay soo galaan sanadkan oo ka qalin jabin doona insha Allah. kullay waxay ku soo hagaageen sanad jaamacadda Burco ay ka mid noqotay 320 jaamacadood ee ururka Carbeed ah ay ka mid noqotay horta ka qalin jabiyeen ha xusuusnaadeen ardayda maanta qalin jabisay idinka waxaan leeyahay hambaliyo waa leeyahay waana waxaa dhamaysteen qaybtii koowaad ama digriigii koowaad ee waxbarashada halkaa kuma eka haddaba cilmigii bilowdeen ha ka daanina maanta xagga ka jarnay inay gobolladoo dhan ka iman doonaan oo wax ku qoran doonaan boarding schoolka beer waxaanu caawana daafurayna 45 ugu horreeya arday xaq wahay technical institute Burco. marka waxaad moodaa sanadkani inuu sanadkii gobolka Togdheer yahay. waxbarasho badan baa waddankeena ka jirta laakiin tayada ayaa wax u dhinaayeen. tayadana insha Allah ta'ala waqtiga soo socota hanti badan baa la gelin doonaa, waqti badan baa la gelin doonaa. wixii badan ay joogno maanta intaas oo difcadood ay ka soo baxeen inaan goobjoog ka ahaa iyadoo dawaan cidla ah markii aynu hindisaynay inaynu hagaajino oo dhisno inaan maanta goobjoog ahaado oo Ilaahay soo gaarsiiyo waa waxaad yaad runtii Ilaahay loogu mahadnaqayo. salaam qaali idinka sidna madaxweynaha iyo tahniyad iyo bogaadin idin soo farayo aad iyo aad baan maalinkan tahay yani salaanta idinka sidno aan ugu nuxnuxsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad ayaan idin bogaadinaynaa idin hambalyeynaa maragna aanu ka nahay shahaadooyinka halkan laydin guddoonsiiyey ee mas'uuliyiintiinu ay halkan idinka sheegeen ay caddeeyeen qodob kale oo asaasi ah jira saankaasina oo shaqo inoogu abuurmi doontee qabyaaladaan la dagaalanno dhulka ma kala lihin dhulku wuu naga badan yahay iyo iil isla weynaan iyo dhibasho qabiilku macnihiisu waa intaa waa sidaa weeyaan nin waliba wax la weyn qabiilkiisa. gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey in ka badan 110 arday oo sanadkan dhammaystay waxbarashada kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Burco. iyagoo gunaanadkii munaasabadaasna telefishinka qaranka uga warramay ardaydaasi dareenkooda una duceeyey waalidkii iyo macallimiintii tacabka badan soo geliyey. waayan Saciid warsame ku magac dheer samawada walaal waxaan ka qalin jabiyay kulliyadda community development ee jaamacadda Burco. aad iyo aad baan faraxsanahay dareenkaygu waa midaan la koobi karayn. magacayga waxa la yiraahdaa Bashiir Raacday waxaan ka baxay jaamacadda Burco gaar ahaan kulliyadda xanaanada xoolaha. Dr. Jamaal Cabdiraxmaan Bulaale waxaan ka qalin jabiyay kulliyadda veterinary science ama xanaanada xoolaha. waxaan soo bareynay muddo 5 sano jaamacadda Burco aan ku jiray. waxaan aad ugu mahadcelinayaa waalidiintii muddada ila soo kifaaxisay. waayaan xuseen dareenkaygu aad iyo aad baan u faraxsanahay. waxaan mahadcelinayaa dhammaan family-gayga oo dhan waa aabaha iyo hooyada. magacaygu waa Wardi Khadar Cayngal aad iyo aad baan u faraxsanahay. waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa Ilaaha subxaanahu wa ta'aala noo soo tageliyay himilada dheerayd iyo higiskii dheeraa aan inta muddadaas soo wadnayna maanta noo dhamaato. kastaba ahaatee ardayda jaamacadda Burco ka qalin jabisay maanta oo ahayd arday kooban oo tayo leh sida ay sheegeen maamulka iyo madaxda jaamacaddaasi ayaa noqonaysa ardaydii lixaad ama dufcadii lixaad ee ka qalin jabisay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Burco. Mustafa Cismaan, magaalo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xarunta jaamacadda Burco.